markii horena waxa weeye muddo 3 jeer jabay wiilkaasi jabniinka ugu horeeyay wuxuu jabay bishii August 30keedii walaalayaal runtii warbixintaas murugada leh oo uu soo jeediyay aabaha Cabdullaahi wiilkiisa Maxamed ku aadanayd بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو دواada akhyaarey ilaa khayraansiyo maanta waxaan halkan u joognaa in aanu balxo ka helno wiil dhalinyaro ah oo 12 sano jira wiilka waxa lagu magacaabaa Maxamed Cabdullaahi Cabdicasiis Maxamed waa ninkan dhalinyarta u jeedaan oo kalbiyada daawanaysan ninkan xaalad caafimaad baa la soo wajahday lugta ayaa bir kaga jiraan xogta oo faahfaahsan waxayna siin doonaa aabaha wiilka oo umada islaamka la hadli doona wiilkan dhalinyarta ah waxa lugaha kaga jira biro oo hadda ka hor laga soo gashay dalka dibadiisa inta uu jabay waqtiga loo qabtay in laga saaro birahan ayaa dhaafay marka aabahan oo tabar badan u waayay inuu biraha marka laga soo saaro dalka dibadiisa ayaa wuxuu rabaa in umada islaamka la hadlo si uu soo caawiyaan waxa rabaa inaan soo dhaweeyo aabe Cabdicasiis aabe Cabdullaahi Cabdicasiis Maxamed balsuu faahfaahin wiilka noo siiyo kadibna waxa ducada dadka u ducayn doona iyo waxa diintu ka baqdo ka qabta sadaqooyinka la baxo sheekh Qardaawi soo dhaw marka hore Cabdullaahi أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ولا الله إلى شوقة يا صحافة دواء يا ولا الله مسلمين تاعنا دعواني يوا وحكم سلام من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا إله إلا ما تسكاله وحنا كان أقوى بحنينا ويل كاير أو ولا وشاقي هردعي سيني شاقي ويل كاير أنواع عندلي أو إن Cabdullaahi Cabdicasiis wiilka yar oo soo maray runtii marxalado kala duwan oo maartay culaysyo badan lahaa wiilkaas oo lugta bidix ay bir kaga jiraan markii horena waxa weeye muddo 3 jeer jabay wiilkaasi jabniinka ugu horeeyay wuxuu jabay bishii August 30keedii 2016 buu jabay dhakhtar baan geeyay biraa la geliyay lafihiis waxa la ii sheegay dhakhtarku sheegay inay yihiin lafa jilicsan oo softiya isla markaana aan fursanaynin in baanta bir la geliyo birahaasi wiilka 8 bilood bay ku jireen 8 bilood hadii ay ku jireen ka bacdi waa laga saaray baaritaan la sameeyay oo lafiyar oo cultural lagu sameeyay wiilka baaritaankiisa istaalka inta ku jirnay ayaa waxay sheegeen dhakhtarkii istaalkaas ka howlgalayay dhaqaatiir kale in wiilku kansar qabo oo kansarka lafaha uu qabo waxayna kolley magaranaysaa markii warbixin talagelyo ahaan ugu siiyeen wadanka dibadiisa inaan u qaadno runtii ilaahay baan iska tala saaranay oo markaas xagga dhaqaalaha aan financialka diyaar maanan ahayn adugu muddo ka bacdi markaan birihii ka saarnay oo socday ayaa waxa weeye hawshiisa aan guda galnay waqti bay qaadatay fiisaan dirnay fiisadii waxa weeye koowaad oo magaranaysaa noo maqan muddo dhowr bilood ay ka soo wareegtay markaasi bir ka saaristii ayaa wuxuu jabay hadana ma garanaysaa wuxuu jabay bishii August 26keedii 2017kii meeshii meel xogaa ka koreysay ka jabay runtii waxa weeye waqti bay qaadatay fiisadaasi kuma aanan tagin waa waynaga kansalantay oo iyadoo waqti qariib ka harsan yahay safarkii oo travel kan gelin lahayn buu waxa weeye uu jabay aduu hadana waa la kabay waa fiicnaaday wuu socday markaas muddo aduu taqriiban 7 bilood meelahaas ay ka soo wareegtay jabniinkiisii oo fiicnaaday oo socday oo aad u ladan yahay ayaa waxa weeye muddo uu joogay aan u kaadinay muddadaas hadaan u kaadinay uu joogayna fiisa ma aanan dalbin mar saddexaad buu wiilka jabay sanadkii muxuu ahaa 2018 bishii March 22keedii hadana jabay meeshii meel ka hooseyso hadana ka jabay oo labada jabniin meel ka soo hooseyso ka jabay jabniinkii saddexaad ayuu galay waa la kabay waa u socday fiisaan dirsanay fiisadii waxaan ku tagnay wadanka Hindiya magaalada Hyderabad hadaan ku tagnay wiilka xanuunkii waa laga baaray waa laga waayay lafiis inay jilicsan yihiin oo aad iyo aad u jilicsan yihiin dhakhtarku sheegay muddan joognay oo ma garanaysaa aan wax operation iyo qalliin lagu sameeyay la yiri lugta
باورkii baa maqan operational lama sameyn karo sida darteed in maartay kuyur lagu sameeyo u baahan yahay adugu ilaahay baa mahad iska leh wiilkii bira la geliyay birahaasina bira adugu 2 sano bay ahaayeen 2019 bishii January 14 biraha la geliyay Hyderabad lagu geliyay dhakhtarku markaas 2 sano ka bacdi laga saarayaa yiri 2 sano waa u dhameystay hadduu 2 sano dhameystayna waxa weeye wadanka wuxuu markii hore oo wadanka aan ka soo tageynay wuxuu nagu soo yiri cidii lafaha ku fiican oo khibradda ale birta way saari kartaa hadii qalabkeeda la helo Soomaaliya waa kaga saari kartaan marka ka bacdi markaan wiilkii ma garanaysaa waqtiga uu dhaafay aan dhakhtarkii la xiriirnay raajooyin iyo waxba laga qaaday raajooyinkaas adoo waxa lagu arkay lugti in space leedahay oo wali qaybo kamid ah ay isgaarin waqti bay haddana qaadatay in loo kaadiyo adoo sanadkii saddexaad baa dhamaaday ma garanaysaa sanadkii saddexaad markuu dhamaaday waxa daabirey inaan ka saarno wadanka kaga saarno dhaqaatiir badan baan u tagnay istaalo badan baan tagnay waxay noo sheegeen in wiilka biraha ku jira ay wadanka looga saari karin oo ay yihiin bira wadanka aan ka shaqeyno inta badan laga isticmaalin sida dhaqaatiirtu noo sheegeen sida adligeed waxay nagu la taliyeen oo talooyin ugu siiyeen in wiilka aan ku celino Hyderabad oo dhakhtarkii biraha geliya uu ka saari karo laakiin birahan aan tuulkooda lahayn oo la isticmaali karin magaalada Muqdisho ugu dambeysay kolley maartay istaalada lafaha ugu fiican sida noo sheegeen sidaas adligeed wiilka biri hadda 3 sano bay marayaan iyo muxuu ahayto 2 bilood runtii lugtana waxa way wax buu ka dareemayaa oo wali waxa ka jira problem baa ka jira saadligeed dakhliga iyo horta markii lagu biraha lagu qabay lacag kharash badan baa ku baxay runtii dad walaalaha ma naga qayb qaateen khayr Allah siiya anaguna wixii aan heli karno waan waxa way ku kaabnay waa qaadna runtii dadka ehelka iyo si fiican wala qayb qaateen sida adligeed hadda anu hadda dhaqaalamaha iyo wiilka aan ku qaado oo aan Hyderabad ugu celiyo wadankiina waxba loogama qaban karo say dhaqaatiirtu cadeeyeen muddadiina waa la dhaafay oo muxuu ahayto nin waxa way u baahan in wax laga qabto weeye hadii birahu qofka ay ku daahaan ee kolley riskiga ama khatarta ay leeyihiin waa dad badan oo wadanka wax yeeloobay waa arkay sidaas adligeed waxaan ku codsanaynaa walaalaha muslimiinta oo dad gudaha iyo dibadda naga daawanaya dad badan oo waxa jira khayrka jecel oo wax la baxa walaalaha saacida anigu ninka hadda dhaqaale uma hayaan ku kaxeeyo runtii laakiin walaalahaas inay saacidaan waan aad u jeclaan lahaa oo igala qayb qaataan wiilka birka saaristiisa iyo inaan Hyderabad ku celiyo aad iyo aad baan waxa weeye u mahadsantiin walaalaha in la joogana oo mahad celinayna akoonada waxa weeye walaale akoonka dahabshiil xawaalada dahabshiil waa 56 akoonka dahabshiil xawaalada 56 weeye dahabshiil bank international 10 ever 987 amal bank waxa weeye 10 36 telefoonku gacantu waa 7 sidaas ma garanaysaa saaciidad wanaagsan baa rajeynayna insha Allah walaalaha gudaha iyo dibaddaba iyo intii garanaysa iyo intii nala aba iyo walaalaha guud ahaan muslimiinta walaalayaal runtii warbixintaas murugada leh oo uu soo jeediyay aabaha Cabdullaahi wiilkiisa Maxamed ku aadanayd runtii waan wada dhageysanay wiil yar oo 12 jir ah 3 meelood ka jabay oo waliba boodadu ay tahay meelaha ay halista ah qof walba oo ilmo dhalay uu dareemi karaa yaani dibtaas iyada ah ilmahaas haysata waxa ka sii daran birtii la gashay oo muddo badan ilaa 3 sano ah ku jirta sida la sheegay oo aan waxba looga qaban karin wadanka sababtoo birahaas Hindiya laga soo galiyay bira qalabka xataa lagu furaayo ma haystaan dadka meeshan jooga ama Soomaaliya jooga marka waxay ku taliyeen sida la sheegay in la aado loo noqdo meeshii markii hore lagu soo kabay ahayd Hindiya waliba aan raajada waan arkay oo birta ku jirta 2 bool baa jaban boolashi laftahay midna waa jaban yahay midna wax yar baa iska haysta raajada mo la saaray taa macnaheedu waxa way birtii qofkii inay lugta ku dhex fakato oo hadhow ay dib u keento marka runtii waa arrin dhibaato wiilka yar oo 12 jirka haysta way quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku baraarujiyay dadka muslimiinta ah inay iscaawinaan wa tacaawunu 'ala al-birri wat-taqwa wixii wanaag isku caawiyaan nabiga kaleey salaatu wassalaam
wuxuu ugu baraarujinayaa dadka qofka dhibaataysan in dhibta laga qaado haddayna doonayna ilaahay subxaanahu wa tacaala in dhibta laga qaado maalinta qiyaamaha man nafasa kurbatan min kurabi dunya nafasa allahu kurbatan min kurabi yowm alqiyaama qofkii markuu adduunka joogo qof kurbaysan ee uu ka fayda oo dhibaataysan dhibaatada ka qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qofkaas dhibaatada maalinta qiyaamaha ka qaada maalinta qiyaamada ognahay dhig badan tahay maalinta iyada ah kurbooyinka jira waxaynu kaga badbaadi karnaa qof adduunka jooga oo dhibaataysan inaa kurbadii ka qaado oo la qaybsato qof kastoo caruur dhal waa dareemi karaa marka yani xanuunka wiilka ayaa dareemayo muddo dhowr sano ah yani lugahaasi ay jabtay 3 meelood ka jabtay wiil yarna uu yahay oo maaragtay waxbarashadiisa ku jira maantana la la'yahay waxa looga soo saaro birtaas birta xilliga la saari lahaa wax badan bay dhaaftay waxa loo saari way waa dhaqaale laan way sida aad u jeedaan barnaamijkan muhiimka ah baa maanta soo bandhigaynaa insha Allah taala waxaa jira wiil yar oo halka tawgiska aragteen oo dhalay Cabdullaahi dabcan uu ka sheekeeyay baan dhibka wiilka soo gaartay waxaan rabnaa insha Allah taala marka in dhibta adoo gaadhay la qaybsado wiilka yar oo walaalka la martay in la qaybsado wixii qof ku culus tabada ma dhibto bagaranaysa marka waxa la qof walba naga mid ah inteeda farada meesha inta maqan inta daawanaysa muslimiinta Soomaaliyeed khaasatan meel jooganba arigaas inaynu qayb qaadano insha Allah taala nabi sallallahu alayhi wasallam wallahu fi aun abdi ma kan abdu fi aun akhi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yahay gargaaraha qofka macnaha adoonka intuu gargaaray baan waqti muslimka ma garanaysa waa shay muhiim weeyaan ta kale waxa walaalayaal nabi sallallahu alayhi wasallam dawu mardaakum bi sadaqa ku daweeya kina xanuunsan macnaha sadaqada waxa laga yaabaa sadaqada ala baxdeen in ciyaalada ka xanuunsan ama ehl xanuunsan haddana istaan ilaahay subhanahu wa ta'ala sinagu noo sheegay oo sadaq masduuqa inuu ku daweynayo ilaahay subhanahu wa ta'ala waqala al-mashruucan isaga mashruuc khayr weeyaan oo mashruuc muhiim ah inta hadda maanta mashruucan soo bandhigtay oo sheegaysa idinku oo simannahay magaranaysa waxa weeyaan waxaan marka dhamaanteen insha Allah ta'ala inaan kala qaadan walaalka culayska ay kurbada saaran annaga oo dareennay magaranaysa inaan ka fududeeno ilaahay idinkiis waxaan rajeynayaa in saas noqonayso waan salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh